هذا dhalinyaro ka shaqeeya dawladnimadu inay hebel baa madaxweynaha reeb waxa sidinka ma anfacayaan waxa idin anfacay mad garanaysan magaaladan aad ku dhalateen ama idinkoo yaryar aad timaadeen inay nabad ahaato oo wax barataan hadii dawlad la waayo oo fawda la galo iyo dawlad la'aan dadka adduunyada fasaad wadamo fara badan oo dawlad lahaan jiro dawladii ka burburtay balse noqday reega wax kasto oo xun baa ka faa'iideysanay iyo aayaadka kale la midka ah tirada badan taqwada waxaynu ku helaynaa la inoo sheegay adduunyada oo ina aynu arzaaq helayno meel aan ka filayn inooga timaado iyo ilaahay xaalada adag oo dhan inuu faraj inooga yeelo oo ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa ma yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra arimaha oo dhan buu ilaahay fududaynaya dad ilaahay diintiisa aad ku dhaqantaad amarkiisa fuliso wuxuu ku diidayna aad ka dheeraato taasi waa wixii aakhira ay ku hagaagaysay taqwa allah adduunyana waa ku hagaagaysa wasamci wacalaykum bisamci waaaca maqal iyo adeecisna ogaada oo labadaana ha laydinka helo yaa la maqlaya la adeecaya lilumaraa almuslimiin madaxda muslimiinta wain cabdan xabashiyan ay wain taamara calaykum cabdun xabashiyu madaxba ha idiin noqdo addoon xabashi ahi maqla oo adeeca wahada yasluxu bihi ama tasluxu bihi dunya annaas madaxda muslimiinta wixii wanaaga in laga maqlo oo lagu adeeco amaradooda la qaato dadka adduunyada ku hagaagaysa haddii madaxda laga soo horjeesto dadka adduunyadooda fasahaadaysa diintoodana saameyn xun bay ku yeelanaysaa oo adduunyadu say u fasahaadaysaa dawladda wax badan oo noloshaaba ku xidhan oo haddii dawlad la waayo oo fawdo la galo iyo dawlad la-aan dadka adduunyadooda fasahaadaysa dawladdu markay jirto ciidan bay leedahay dadka kala celiya maxkamaday leedahay kala xukuma haddii dawlad la waayo waa sida loo kala xoog wen yahay idinku waad yaryar tihiine magaaladan hargeysa aynu joogno mar buu qorigu ahaa xaakimka niman dayda la yidhaha baa magaaladan joogi jiray waa jabhaddii dawladdii soomaaliya la dagaalantay iyaga ahaa kuwa xukuma waxay wax ku xukumayeenna may ahayn inay isteeshina fadhiisteen oo si nidaamsan oo boolis ay u shaqeynayaan maxkamado magaaladaasay soo geli jireen suuqaas aad arkaysanoo saa u camiran ayaa baas suug ka dhacaya suug ama shilke ama baroon ama sikaawi ama qoryaha yaryar ayay saa u marin jireen 10 maydaa laga qaadi jiray cidna isma weydiin jirin cid soo qaban jirtay iyo mag laga qaadi jiray iyo qisaas iyo waxaasi ma jirin qaadka dadka iibinaysa u marin jireen way iska qaadan jireen khalaas cid la hadlaysa ma jirto لأن الحاكم هو البندق qorigaa u xukumayay dawlad kale ma jiro oo awood leh alaabta kale waxay u baahdaan saas oo kale iyagaa wadooyinkaa taagnaa hadaad ka safarta hargeysa ilaa berbera ama ilaa burco 10 istabood baa ku yaalay mid walba lacag baa lagugu weydiinaya haddaad bixin weyda waa lagu tuqaantuqinaya ama waa lagu tooganaya dawladaantu dhibaatadaasay leedahay dawladda xun ayaa 100% ka wanaagsan dawlad la-aan imika eega yaman bal eega waxaa ka taagan soo ma aragta iyadoo dawlad labaan anagu joogin labada xaalo marka la isgarab dhigo shaqo iskuma leh libiya bal eega wadamo fara badan oo dawlad lahaan jiro dawladdii ka burburtay balse noqdeen eega wax kasta oo xun baa ka faa'iideysanaya dad baa la iska dilaya waa la isdhacaya dumarkaa la iska kufsanaya dadka cid kale celisaa ma jirto cid loo ashkatoodaa ma jirto walihaada dadku inay dawlad leeyihiin adduunyadooda ku hagaagaysa diintooduna ku hagaagaysa walihaada dhalinyaro ka shaqeeya dawladnimadu inay jirto hebel baa madaxweynaha reeb waxa sidinka ma anfacayaan waxa idin anfacay mad garanaysaan magaaladan aad ku dhalateen ama idinkoo yaryar aad timaadeen inay nabad ahaato ood wax barataan oo aad shaqaysataan oo aad guursataan ood caruur dhashaan dan miya idinta inaad qaxdaan oo miyada aad tagtaan
annaga taasoo aragnay annagoo yaryara naga waraysta galaaska 6aad baan iskuulka marayay ka 7aad baan gelayay 88kii markii Hargeysa laga qaxay waxbarashada halkaas ku gooday waxbarasho ma jirto noloshii meeday 8 bilood baan cunaynay qamadi bila milix oo cirka looga iman oo baqa noo wehelnay marba meelaan ka yaacay markii dambana dulcad baanu tagnayo 3 sanadood dhow baan joogayo habeenan si fiican u seexday garan maayo waxaan ka seexan way mad garanaysan tagfi baa la dhamaad maqasheen ya xameedan arag Soomaha marka qofna ha ka yeelina dawladna ha ka yeelina cid kalena ha ka yeelina qaxdaan la dhaha nabadayada iyo deganaanshaha iyagu waa lama taabtaan qofku wuxuu kale ka hadlaya ka hadlo laakiin taasi mid la taaban kara ma qaybna ha ka noqonina idinku fitna iyo nabadgelyada iyo kala dambeyntu inay naga burburto diinina ma jirayso adduunyana ma jirayso hadii la isariido waa la isla kin jiiri doona hadhow baad oran doontaan dadku waxay miirsadaan marka dambe ee dhibaatadu ay ku dhacdo markan hore fitnada wadato waa xamaasadeysay waa cadifadaysay mid la socda ka kursiga ku dhagan ilaashanaya iyo mid la socda ka kursiga doonaya hatta ismu weydiin adiga maxaa horta dantaadu waa maxay adigu ismu weydiinay hadduu hebelkani kursiga sii fadhiyo maxaa adiga kaaga dana maxaad ka helaysaa adigu haddii hebelkan kale kursiga ku fadhiisto adiga maxaa kuu soo kordhiya mareer hebel baad cuni doontaa adigu mareer hebel baa google ku noqon oo guri ku noqon markaad qaxdee roobku cidlada ka heliyo dabaysho id kaba weydaad cagaagto ee tagfiyo duqaan ku cunaan waxbarashadaadii aad seegto oo diintaadii aad seegto wallahi idan saa u fadhiyayno aan duruus leedin ku aqriyo haday fitna dhacdo la isriyo عليكم بالسمع والطاعة سوري النبي عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عبد حبش عبد حبش كم حال شيء علماء لبا تفسير بكلين تفسير الكوات وحويان إلا يراضو الضون إنه مسلمين تمضح النقطة ما بنانه وحلوت شيء ده يعني وحلو حيل ديرانه يعني فريتان كدتك الله فريو ما دحدو ده إري الديعان علماء غير كنا واحد هذا الماء وإن تأمر با فسيريسو oo adoon haduu xoog ku qabsado xukunka oo muslimna yahay la oran maayo kan xaq uma laha inuu xukumo waaruna xaq uma laha laakiin in lagu kacaa ma banaana oo lala dagaalama oo laba dhibaato meesha yaalo tayar baa lagu sabraya si taweyn looga badbaado inuu adoon muslimiinta u taliya muslimi de waa dhibaato Soomaa oo wax sharciga khilaafsan in adoonkii oo meeshii qabsado isagu ciidamadii haystay iyo dawladii lala dagaalamaana waa mushkilad kale oo fitna iyo fawdiyo dhig daata ka dhalanaya marka tayar baa lagu sabraya si taweyn looga badbaado ilaa inta Ilaahay uu faraj keenayo